Seeraha maroodiga ee degmada Baabili ee santarka Koora. Degmada Baabili waxaa la aasaasay 1962 ee taariikhda dalka Itoobiya. Seeraha dhulka ballaciisu yahay 1982 kiiloomitir square ayaa sidoo noo sheegay mas'uuliyiinta xafiiska duurjoogta inuu dhulku 85% uu yahay deegaanka Soomaalida ee degmada Baabili. Seeraha maroodiga mid ka mid ah maroodiyaasha oo soo gaaray jab lug ah sababay inuu fadhiisto maroodigu. Kadib markii la ogaaday inuu jab soo gaadhay, waxaa gurmaday maamulka degmada Baabili iyo xafiiska ilaalinta maroodiga. Kadib markay arkeen inuu jab xooggan lugta kaga yaalo, waxa uu maamulka degmadu codsadeen in gurmad loo fidiyo. Waxaana ka soo baxay doctor ka socda xafiiska ilaalinta deegaanka iyo maamulka miyiga iyo dhanka xafiiska maroodiguna wuxuu wargeliyay dhanka kuwii ka sarreeyay. Waxaana soo gaaray goobtii maroodigu yaalo gurmad ballaadhan oo heer federaal iyo heer deegaana. Iyadoona ka maqnayn degmadu waxaa la bilaabay baaritaan dheer kadib waxaa la ogaaday in ay lugtu kaga yaalo jab aad u weyn oo la isku dayay sidii loo kabi lahaa. Waxaana ka soo baxay doctoradii iyo goobjoogayaashii inuuna maroodigani maadaama uu yahay maroodi da'diisu weyn tahay lagu qiyaasay 40 ilaa 41 sano jir uuna lugtu ka maynin sabab la xiriira culayska iyo da'da.